السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي مال كستا أدونك جوجتا وسيكي أذن له isku soo noqod wanaagsan oo waliba xiiso leh waxaan ku rajeynayaa adigu caafimaad qaba inaad soo laabatay sidaan anigu caafimaad qaba hortaada ugu soo laabtay ayaan ilaahay kaaga rajeynayaa adigana inaad u caafimaad qabtid waayahay waxaan marka hore hambalyo u dirayaa qaaliladan iyo raaga cabdi oo aqal galay waxaan leeyahay guurkiina ha noqdo kii lagu nastee lagu nagaado waayahay haddaba iyagoo isku ag fadhiya xaaji iyo xaajiyadiisa bal aan wada daawan kaas naga taqaano ومahadsantihiin aniga iyo raaga cabdi maxaan ku raada dad xideen branki waaye meherkooda nolosha YouTube-ka saasa qofka hadiiba mar uu YouTube-ka soo galo fiiri Facebook iyo meelaha kale nolosha YouTube-ka waa ay ka duwan tahay qofka markii noloshiisa YouTube ay ku soo lifaaqanto inta badan waxyaabaha uu sameeyo waxa loo maleynayaa entertainment haddii xitaa noloshiisa dhabta mararka qaar uu damco inuu ka sheekeeyo soo fariisto inta badan dadka ma aaminayaan ilaa derbiga ay soo taabtaan marka hadda guurkooda waxaa la lahaa brank ma nagu sameey rabtiin camal haye dad badan jira aan u sheegnay oo na aamin waayeen oo branki wadin branki dibkaas oo keenay aniga naftirkeeya maalintan dhagax dhigta branki loo maleynaa waa oga wuxuu u maleynaa inaa brank ku sameeyay sheekh xataa waxay branki sheekh xataa ma joogti sheekh naftirkiisa loo tagay oo la dhahay aan is dhagax dhiganay faataxada noo qabo noo kala tuur wadaadka isku mehernaaya wuxuu yiri xitaa aryaa ma anigaad brankiga ugu soo dartay wadaadka xitaa brank ku maleynaa macna inaa u keen amal oo la hadal macna maleynaa iska qaar marka waxyaabo lagu ciyaaro way jirtaa laakiin guurka lagu ciyaari karo waa wax ceeb marka waxa way ducadiina aad ku badneed wada aad wax ugu farxan ku sheegaray ku sheegaa dadka zaaidiin ugu duceeyeen ما شاء الله qof kasto qalbi wanaagsan laba qof oo guri xalaal dhistay wuu u duceenaday qasab waxaana oo daqiiqo ilaahna kala siiyo kala aayeen in isku waarno waxa kala aayeen maxaan ku raada laakiin aqafna ugu duceeyay ilaah tamaakii khaladan ilaa hadda qof lacag nagu duceeyay ma arkin kula lacagtu waa jeceshahay qof lacag nacab ma jiray laakiin adi waxa taayinta ducada ay ugu diri weeyeen lacag heelaad lacagta aniga ku duceysanayna miya tadabir mid la waxa ma jiro ilaahay dunida idin kala kiciyo ma jiro laakiin horta waxa la isku haystaa markuu meherkii uu sheegay sheekha biifshi fiido ugu duubay magaalada la wareega waa aragtay meherka waxa la yiraahdaa sug cajaladaas waxay u baahan tahay in laga dabageeyay meherkeeni aan isku haystaa ay tiriba wariya ilaahay yaqaano markuu meherkii uu sheegay sheekha labada qof isguursada maaha ehelkooda maaha meherkoodii ee isku haystaanba markuu meherkii uu sheegay sheekha labadaana ismehersaday dadaaba meherkoodii isku haysta markuu meherkii uu sheegay sheekha markuu meherkii uu sheegay sheekha dad isguursada meherkooda la isku haystaa adoo caagiya ay ka dhaafaan marka markuu meherkii uu sheegay sheekha Soomaalidu soo dhibadii waxa la ala qaali xisaabeed waxa qaali raqiis la ma wa maxaa qaali alaab la gadanayo ma ala qaali xisaabeed qof bina aadan waay waliba jacayl ku guursatay sida noo muuqata qof iyada qayaarkeeda ee la timid aan lagu darin wallahi waa intiis wariyaahe nolosha muhiimadeeda lacag maaha lacag inta idin ka gashay Soomaaliyeed lacag guri ku dhaqmayso hadda hadii nin lacag uu saas kugu hurgufo aad laba cisho laba maalin aad la sheekeysan ma sheegi kartid in noloshaada dambe uu ku dhaqi karo wallahi waa intiis wariyaahe inuu waalan yahay ma ogid inuu isfiilata qabo ma ogid inuu dumarka dila ma ogid habeenkii inuu soo saso mido wa inuu maardar yahay xitaa 30 qof soo cunay ma ogid lacag marka aad iska galay array adduunka lacag maahan dunida isfahan waaye nolosha labada qof ee guri isku geystaan isfahan waaya qado qaali waxa u maleynaa waxa lagu haystaa la dhooyaa meher lacag yar lagu guursada camal war Soomaaliya laba qof ay isguursatay intay wax isku qabsanayaan heblaay waa la guursaday maxaa meher lacag yar loogu aroosay who are you adiyata heblaayda dhagax dhigtay matiid energy-ga aad bixinoosid yaa lacag kugu siinooyo markaan يا أنا كأرجع. أنا عباود موجودين وياه.
marka waxaan horta inaa idin sheego dadka yiraaday baawur muu gadanayo adaa jawaabteeda siinaysa laakiin kuwana waxay taagan yihiin lacag badan aa lagu mehersaday baawur muu gadanayo camal lacagtaas badan muxuu uga bixiyey kuwana waxay taagan yihiin raqiis waay lacag yaraa lagu mehersaday war yaa ilaahay yaqaan laba qof aa isdoortay isdhagax dhigtay dadaa waxay ku murmaayaanba meherkeedaa raqiis ahaa meherke aloor aniga marka haddaa dhagax dhigto war sunniyaada xitaa ma arkaysaa waa booday saacaddan laga bilaabo dis bombela waxaa rabtiinka sheega ay waxaan maxay ahaayeen horta ay xiran tahay waxaa la dhihi jiray walaal dumarka way xirtaa si fiican cabaayadeeda laabta ka banaan iyo qari waxaa rabtiin dhaha realitiga waa qarsaa sana laba qof ismeersada meherkooda balisku haystaabo waa qarsaa aniga markaa dhagax dhigta biswa qaali raqiismiyaan jawaabtooda siinaa si fiican u dhegeysta dadka yiri qaali raqiis miya gal hurguf malahay waxa waaye dadkii dhaheen qaali maxay raqiis iskaga dhigtay horta nikaax waa waxa kaliya aniga aan joyce u leeyahay oo aan qof kala tashanaynin ha noqoto asaga laftirkiisa ha noqoto family asagoo lagala tashanayes ha noqoto familygayga waa waxa kaliya aniga aan xaq u leeyahay oo xaqayga ah waxaan rabana waa sheega karaa midda kaleeto su-aasha marka waxa waa jawaabta aan siinaayo dadka dhaheen qaali waa raqiis ayaa lagu nikaaxsada ama meherkeed u ahaa aniga nin aan jeclaan guursaday ee ma aanan guursan lacag bravo jawaabtiina waa haysataan team gorgoris team yaa idin og team waqti iska lumis team nabar waa lidiin jawaabay aniga nin aan jeclaan guursaday ee ma aanan guursan lacag taas waa ina ogaatiin jawaabtiina waa intaas haye ada dadka waxaa baawur baan gadooyaa dadka dhaha lagaa raba jawaabtooda baawur ma meherka lacagtiisa baawur ku gadanayna camal macnaha markii oo naaga aan ka bixinaa $2,000 baawur baan gadooya gurmaan gadooya $2,000 saas qaali muu ahabe $2,000 dadaan haysanin been maaha laakiin qof dumar haddii loo fiiriyo maanta qofkii lacag haysto 2,000 iyo ka badanba gabar Soomaaliyeed waa u qalantaa qofkii wax haysto waaye qofkaa wax haysaninna diintaada ku dheesao meherkaa la qafiifiyo caab maahan marka meherka haddii la qafiifiyo qofta raqiis miyaa maxaasaan maaragtay lacagtan yar loogu mehersaday wax jira maahan haddii loo badiyana oo nin lacag haysto dee oo iyada maaragtay siisto intuu doono 10,000 5,000 wuxuu rababa meheraa uga dhigee iyadana maahan qoftan maxay ahayd dumarka mee wax dheertaa iyo ma ahan war idinka dadaaba iyaga isdhagax dhiganoye maxaa idinka galay ama raqiis ha looga dhigo ama ha loo kordhiyo idinkuma waxaad tihiin wasaaraddii u fadhiday dadka isguursada waxay isku guursadaan inay raqiis yihiin inay qaali yihiin war ya ilaahay iyo rasuulkiisa yaqaan haddii lacag qaali laga bixiyo dahab may dhalay kulaa ar Soomaaliya idinka ama teedkiina ama teed waa dhaafay lama teed waa wiciina aroosyada badana aan duubo nikaaxyada waa joogaa mugta haye ilaahay amarkii qaarna waxaa waaye $5,000 صح qaarna $500 waaye haye marka meherka wax oo hadda saas muhiim u ah ma aha wuxuu ku xiran yahay gabadhu ku xiran yahay صح gabadhu waxay ku faraxsan tahay waaye because qof bilo aad mid ana guursanaysa oo naftiisa dhan ku soo horay soo marka meher yaro $2,000 waxba ma aha agteeda ani ahaan yani hadda qaabka aan u arko $2,000 waxba ma aha صح lacag saas u badan ma aha waxaaba laga yaabaa qofkii inuu meherkii yahay $500 laakiin qofkii aad $10,000 ba caadi oo kale kaaga baxbaxdo baan ma wallahi qofta adoo $100 meher uga dhigi waxaa laga yaabaa 10,000 inay kaa gasho marka muhiimadda waxaa waaye gabadha waxay rabto markaa labada qof xiriirka ka dhaxeeya wixii markaa ay ku heshiyaan ay muhiimadu tahay qaalina muhiim maahan raqiisna muhiim maahan haddii meher qaaliya lagaa bixiyo guri kuu dhaqi maayo haddii meher raqiisa lagaa bixiyo guri kuu dhaqi maayo guri wax dhaqaayo waa labadan qof oo kale hadda isguursaday isfahamkooda isfahan le guri dhaqo qoftan lacag qaaliya aniga kusoo guursaday 100,000 kusoo guursaday $100,000 tusaale waaba tanaaba ariyaa bombelo $100,000 ku guursadaba guriyaa geystay haddaan guri geystay dhaqan ma leh isfahan ma leh $100,000 ma dhaqay marka
boqol kun oo door isfahan muu noqone nasiida boon belaate laakiin waa quusa saalax intay tarunta ka imaaha ina qari hey marka anagana marabno in social media noo korto $5,000 oo ahay $10,000 oo ahay war yaa ilaahay yaqaan horta yaa waay dadka social media u fadhiya oo saan oo kale labada qof isku guursata meherkooda ka doodaya idinka ma ogiba yaa waay xil maalidin si xil maalidin dhiibay labada qof is guursada meherkooda ka dooda inuu raqiis ahay iyo inuu qaali ahay hay'adda meher u doodida ma soo baxday kale waa yaabay ali laba qof oo is guursada maxaa meherkooda loogu murmooyaa muhiimadda waxaa waaye labada qof inay isku faraxsan yihiin ay jawaabta ilaa tama siin jawaabta waxaad u siin ku sheegaa yani dadka ku yir baawur ma iibsanaysaa $2,000 markaad bixinaysid baawur wax ka qaalisana ma iibsano ilaa baawur wax ka qaalisana heloya sama ha inta sakaar pointiga sakaar sababtoo baawurku wax baawurku shilo galaa iyaga waa dhamaaday laakiin bila aadan intaad qaadatid lacagta adduunka ugu qaalisan bila aadan ku soo iibsanaysid waa dhimana laakiin ما يتعود من تدي هذا شنو ما قلت كلام طلع لها دي هذا قبلها هذا مهر لها دي إلى كاره جاء الله دي قبلها هذه وعد ما يعني ما طلع لها كهلو يعني لما سمع باغ قال يا مش اول جعل دي قبلها بحضو لعكتي صح وهي وصدق خينيسا انا جاي والله صدقينا أنا وأكون تغير سنة لابد أن أكون تغير سنة مهر مهم معناها مهر كدين توي شكتي هلا في اللي يري نك هستسه أنتوا ربوا ترى ودي كلام مهر إلهي وبقول كل دولار بها وقديو مهمة دمها مركة نايتان بقول كل دولار اللي بحي نايا كلام حدا أنت ذهب ما يدري لول ما يدري ما أهن نك أوجرتو إسقى سينكرا فيري نك أوجرتو أودي إلهي سيو قفتي إسقى كبحن كرا وحضانه لكن muhiimadda ariga aan ugu kuleyn muhiimadda waxay tahay diintaadana ay ku fartay meherka qafiifi aniga waxaan badhihi lahaa waxaad lacag ku falay qosol ilaa aad ka dhimay qosol khawar meer fiican baaro Sika family let's go